يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن markasto uu kordho isticmaalka waxa aad adigu haysato waxa kordhaya waxaad haysato si aad u isticmaasho يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بسم الله الرحمن الرحيم لما أمد الصوماليين ميل كستا جوجتان با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام قيمة بدن كدب كسر دوادا حلقوين isdabajooga ah oo ku saabsan barnaamij la yiraahdo riyadaada run u bedel barnaamijka riyadaada run u bedel waa barnaamij aan rabo inaan ugu ifiyo dhammaan inta hamiga leh inta rabta inay riyadooda ay run ay u bedelaan dabcan waxaan isla ognahay inay jiraan boqolaal kun malaayiin qof oo dunida jooga oo qof kasto kamid uu leeyahay riyooyin iyo hami uu rabo inuu nolosha xaqiijiyo inta uusan dunida ka tagin ka hor laakiin nasiib darro dad fara badan way ku fashilmaan inay hamigaas dheer oo fog iyo riyooyinka iyo dreamska ka dhex guuxaya inay u bedelaan واقع إني أبدلان ويكون فشلمان محايلة ما يقانان ويجي أما حبكي يكون جاري لهايين ريون كده يكون جاري لهايين سياس درت هذا وحن هل كان يدقى سو جدينا يا حلقوين كلا ددوان أو إسدبجوك كوسار سن سيدا رياضة لوجو بدلا رن لوجو بدل كرا يدا الله مرة يو استيبس يتلابوين حقيقية يكون جارسين يا وجديد أصدر أو نلاش عرلاضة حلقة كوبات برامجك رياضة هذا رن وبدل وحكوس سيهاي استعمالك أودهاga iyo fursadahaaga يعني حلقة كوبات وإناد فرصتها آد هيساتو إيه أودها إلهي كسيي إناد استعماشو سيد رياضة آرون ugu بدشو نصيب درada jirta waxa kamid dad fara badan waxay leeyihiin awoodo dad fara badan waxay haystaan fursado laakiin fursadahooda kama faa'iideystaan ma dhaqaaqayaan ma shaqaynayaan awoodi oo dhan oo iyaga ku jirtay way baabi'inayaan sidaas darteeda riyooyinkoodu waxay iska joogayaan dream ilaa ay ka dhintaan wuxuu iskaga jirayaa dream wuxuu iskaga jiraa riyo ma dhaqaaqayo ama talaabooyin sababtoo ama isticmaalayo awoodihiisa mana isticmaalayo fursadaha uu haysto darteeda aad iyo aad ay muhiim u tahay in maanta laga bilaabo markaad barnaamijkan daawato dhageysato inaad go'aan ku gaarto waxa aad haysato inaad isticmaasho macna marka waxa su'aal laakiin oo su'aal muhiim ah si aan u isticmaalo fursadaha aan haysto imise fursadood ama imise awoodood ayaa muhiim ah oo ay tahay inaan isticmaalo ama aan heli karo runtii su'aashaas waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah markii aan daraasad ku sameeyay buugag fara badan ee dunida ka hadla horumarka bini aadanka ka hadla sida riyooyinka loogu bedelo reality loogu bedelo waxaan ka soo khulaaseeyay 5 qodob oo aan u arko inay yihiin 5 qodob ee ugu muhiimsan ee hoos imaanaya isticmaalida awoodaha iyo fursadaha hoos imaanaya ama xalqadan koobaad hoos imaanaya 5taas fursadood ama awoodood waa inaad isticmaasho si aad riyadaadii ay run isku bedesho macna laano 5tan hadaa isticmaasho waxa shaki ku jirin inaad u sii dhawaanayso talaabooyin aad u qaadayso riyooyinka aad u qaadayso shantaas waxa ugu horeeya oo number 1 ah oo kan koobaad oo aad ka muhiimka u ah si riyadaada aad run u bedesho muxuu yahay waa waqtiga يعني وقتك محل ولا جيدا يعني قف كستو أنا جنا جميل وحوه هيستا وقتي جونا وريسورس هي خيرات عجيب أو آد مهم لكن نسيب درجة جرت وحوايه ضدكم ما استعمالان وقتك ما استعمالان هذا وقت وقت هيستا هذا ضل يرى تهاي وري ما أذن ما أركن جارين مرحلة آد أعنص سنسدرت هذا وقتك وحو كجرا value هي قيمة بدل أولية لكن ومركز كفا إذا يستو ومركز أو استعماشه وحيابه في عن ومركز أدو أديك أنفعه وقتي أكو سمايس لكن هذه أتكون سمي ويس وقتك وحكو أنفعه معنى هذا وقتك وكاتجي وإحنا كم أذن قبصا مال علانا وقصة عضي ريوين كاجي أو لنا وحرم اسكو بدلايا ملها بل كورما قفكي ساكا انت سوور جرمادا او غوريسا كسو كخا ee fadhi ku dirir fadhiista ee cawada laabta ee 20 sano 30 sano saas ku jira qofkaas mariyooyinkiisa xaqiiqoobaya ma xaqiiqoobaya laana waqtigiisa dhanba wuxuu ku qabanayaa wax aan ahayn wixii lagu talagalay in lagu qabto idan waqtiga ka faa'iideysto kuna baro wax fiican مثلا inaad kitaab inaad wax akhriso
وقتك وكفايدة مجال كهذه مثلا هدي أد هل كتاب كأخرسه بالكستو لما إيه تمر كتاب أيام أخرسي سنة كعلى أخرس إذا وقتك وكفايدة وحبا كبرتي إذا وقت واسع ده معلن كرتيد إيه كفايدة مركا فرصة الكوبات أو أد هيسطو أو هدي أد استعماشه سيسحة أد استعماشه كل وينيا إن أد جارته ريوين كاج أي رنو بدلان وإن وقتك أسيس صح أو استعماشه وماشى رسولك أوليه عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يعني لبن نعمه ضد آد أفر بدر إياه هذين أي أولع ضد بدن ولايهين معيك ليه لما داسو الصحة والفراق الفراق يعني ما أنت وحاجة ضد ما أنت آد مشغول ما أنت هداد وقتها يسطو ولا له فرصة هيسطها وقتك كفى إيديسو dad fara badan oo maanta waxa jira waqtigooda haysan dad fara badan oo busy markasto waliba qofku da naqdo waa si mashquulaya wuxuu gaarayaa xilli uu waqti oo dhan uu heli karin soo inta aad waqtiga haysato waqtiga wax ku qabso leena waqtiga soo celin karti ajalkiisa laakiin waa ka faa'iideysan kartaa kaas waa qodobka koobaad oo shantii qodob kamida ee hoos imaanaya xalqada fursadaha iyo awoodahaaga inaad ka faa'iideysato qodobka labaad ee aad iyo aad muhiimka u ah waxa waaye oo ku dhaweynaya inaad riyadaadii run u bedesho وخبرات أبوريست خبرات هي سويتان كحرفات أما موضوع مهم إن سكتو معناه هذا محل رجينا كو حنصورنا هذا وقت جاك سوف أيتصومه وحباك صبرت كده وقت جاس وإن هذا وح معينة بلشدي اللو ذاته إن هذا يخط تخصصه صفي على ضبرت أو خبرات أولادها أو أرجمة أولادها أو صفي على التقانو لكن هذا وحبا أقول معنى هذا ريوين كذا هذا يكون ما بدري كذي إذا وإن تقانو شيء مثلا أبي أضربته بلشدي إن اللو ذاته وحور ربح النقض أي شيء كستو وإن صفي عن التقانو أو خبرات أولادها هذا ما أنت أي سكيل أضربته حرفت كستو دون أضربته مال كستيتالا meel waxa jira lagu barto waxa jira youtube ka dhoobantahay meel kasta ay dhoobantahay buugaga yaala xirfad waxay rabtaan noqoto any kind of xirfad sida wax loo qoro sida bulshada loo saameeyo hatta مثلا فيديوga sida loo duubo caalamku waa khibrad hadda adduunka aad ugu soo kordhaysa ma taqaana ma leedahay waa xirfad markaad xirfad leedahay oo si fiican u taqaano oo shay aad u taqaano aad iyo aad ayay muhiim u tahay macna yani shaygaas waa ka mira dhalin kartaa wuxuuna ku suurta gelinayaa inaad riyadaadii aad run u bedesho oo riyadaadii markasta aad u dhawaato ayuu aad iyo aad runtii kuugu suurta gelinaya waxaan runtii aad uga xumahay oo aan rabaa markasta inaan sheego yani dad fara badan oo dhalinyaro waxay ku jiraan waxa loo yaqaan wahmi ama dhalanteed la yiraahdo mesela inuu wax kasta yaqaan macnaha wax kasta inuu yaqaan ana hadda way qof weydiiso dhalinyaro oo tiraahdo hay adiga maxaa taqaana oo bulshada aan la wadaagi kartaa su'aasha wuxuu kugu jawaabayaa maxaan aqooninba maxaan aqoon yani wax kasta aqaana macnaha qof wax kasta yaqaan ma jira waa arrin runtii aad iyo aad u khaldan maalin hore hadda oo usbuuc laga joogo waxaan la kulmay mid kamida shirkadaha ganacsiga ugu waaweyn magaalada Muqdisho maamulaheeda iyo milkiilaha ayaa la kulmay wuxuu igu soo booqday xafiiska akaadimiyada hagaag ee hogaaminta iyo horumarinta asigoo raba in shaqaalihiisa loo qabto tababar weyn oo skill-kooda iyo xirfadooda la kordhiyo asigoo raba ayuu ugu soo booqday markaan sheekaysanay kadib wuxuu i weydiiyay su'aal oo dhahay Mas'uud waxaan rabaa 100 qofood oo shaqaale ayaan u baahanahay markaas ana 100 qofood oo shaqaale wala heli kara waa shaqaale waa dhowyiin markaas uu dhahay laakiin shaqaale u baahan moogta waa in leeyihiin xirfadaas xirfad wuxuu ii tiriya xirfad aan caadi ahayn markaas aan ku dhahay ma yaani dadkaas ma haayo era cajiib oo markaas ugu joogo markaas uu dhahay dalka Soomaaliya dadku waxay dhahaan ama ortaan shaqo la'aan ka jirta markaas uu dhahay dalka shaqo la'aan kama jirta shaqaale la'aan ayaa ka jirta سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي